Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhowow daawade taxanihii makhluuqii ku jiro dukaanka qaybtiisii 10aad. Waxaa u imaaday booqadayaal badan oo ka socda boqoradda, waxayna u soo dirtay kaarka sanadka cusub Windsor Castle 20kii Diseembar 1888. Waxaana ku qornay qaaligeygiyo Joseph, kani waa sanad cusub. Waxaan u malaynayaa in ay ii eg tahay, miyaysan ahayn? Waxaan jeclaan lahaa in aan ku soo booqdo in badan. Waxaana doonayaa in aan imaado sanadka cusub isbitaalka. Sanad wacan saaxiibkeygii. Hadiyadda waxay ahayd sawirka Alexandra iyadoo ku soo qortay magaceeda. Marie wuxuu ku dul ooyay sawirka asigoo si taxadir leh u dhigaya sariirtiisa. Wuuna fadhiistay asigoo doonaya inuu boqoradda qoraal u qoro. Waxay ahayd warqaddii ugu horreysay noloshiisa. Isbitaalka London 23 Diseembar 1888. Boqoradeydii qaaliga aheeday, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Kaarkaaga cajiibka ah iyo sawirkaaga waa shayga ugu wanaagsan ee qolkayga, waana waxa ugu qurxoon ee aan haysto. Waa hadiyadda igu horreysay noloshayda. Laga yaabee inaan sanad cusub la qaatay hooyaday, laakiin ma xasuusto. Sidoo kale waxaan haystaa sawirka hooyaday. Aad ayay u qurux badan tahay adigoo kale. Laakiin hadda waxaan bartay dad badan oo caan ah, kuwaas oo naxariis badan, sida Dr. Frederick Travis. Aniga aad ayaan u faraxsanahay, maxaa yeelay waxaan arkayaa sanad cusub. Saaxiibadeyda qaaliga aheeday. Marie wuxuu haystaa saaxiibo badan hadda, laakiin wuxuu aad u jecel yahay carruurta. Wuxuu waqtigiisa inta badan ku qaataa wax akhrinta iyo la sheekaysiga booqdayaashiisa, balse bannaanka ma uusan u bixin jirin. Wuxuu u fikiri jiray una ciyaari jiray sida carruurta. Sanadka cusub waxa uu doonayay in uu aado tiyaatarka. Tani waxay ahayd mid aad u adag sababtoo ah ma doonaynin in ay arkaan dadka jooga tiyaatarka. Laakiin haweeney naxariis badan oo lagu magacaabo Kenda ayaana caawisay, taasoo ahayd maamulaha tiyaatarka. Waxaynu doonaynay in aynu tiyaatarka ku aadno gaari faras, kaas oo leh daaqad aan wax laga arki karin. Tiyaatarka waxaynu ka soo galnay albaabka gadaale, albaabka boqoradda. Albaabka boqoradda qofka ma arkayso. Asiga iyo aniga waxaynu isku xirnay sanduuq, kaas oo aan wax ka arki karnay. 3 kalkaaliso ayaan hor fadhiisnay sanduuqa. Aniga iyo Marie waxaynu ku jirnay gudaha. Ma jirin qofna arki karay, balse annaga waynu arki karnay ciyaarta. Waxaa joogay carruur aad u badan. Marie aad ayuu u jeclaa arrintaas. Waxay ahayd mid aad u cajiib ah, aadna xiiso u leh. Maanta waa naga inta aynu qayb midaan la mid ah ku kulmi doonno, waxaynu kaga teginaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.